بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warbixinta maanta aan idin sido waxay ku saabsan tahay sharci cusub oo berito jimcaha ah oo June 26keeda 2020 ka dhaqan gali doona Washington State oo aan doonayo dadka iyaga Soomaaliyeed inay ka warhayaan ogaadaan waxa meesha ka socda si aysan ugu haligmin ayagoo aan warba ahayn sharcigan cusub waxa uu dhaqan galayaa berito waana decreto ama amar mandatory face covering oo ka soo baxay stateka governorkeena Washington State Department of Health secretary-ga ama qofka ugu sarreeya mas'uulka ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka ayaa qalinka ku duugay isagoo amar dul dhigay qof kasta oo Washington State degan inuu amarkan u hoggaansamo amarkan wuxuu leeyahay laga bilaabo maalinta jimcaha ah oo berito ah 26 June 2020 qof kasta oo ku nool Washington State waa inuu xirtaa must wear a face covering that covers the nose iyo mouthkooda qof kasta oo Washington State ku nool waa inuu dhaqan geliyaa una hoggaansamaa inuu wejiga face covering oo ah sanka iyo afka inuu xirto when in any indoor or outdoor markasta ay gudaha u soo galaan dhisme ama ay dibadda ka joogaan waa marka la helo xaaladkan oo public setting ay dhacayso maxay tahay inside any building oo ay xitaa ku jiraan business kasta oo dadku ay aadaan dukaamada laga shop garaysto meelaha la isugu tago ee maxaan ku radaa waxa laga iibsado iyo xitaa cisbitaalada iyo klinikada xitaa meel kasta oo dadku ay yimaadaan waa inuu jiraa face covering meelaha dadku ay wax ku sugaan ama leen ay u galaan oo transportationka hadday noqon lahayd bus hadday noqon lahayd train hadday noqon lahayd taxi iyo kuwa xitaa taxida ee for hire-ka ah meel kasta oo qofka uu dad isu yimaadaan waa inuu wejiga qof kasta uu xiran yahay face covering uu jiro oo sanka iyo afkuba dadku ay u xiran yihiin haddii ay dhacdo xitaa guryaha in laga fog yahay oo outdoor activitieska oo public parkska iyo sidewalk iyo meel kasta oo maxaan ku rahdaa dad isugu imaanayaan iyana waxa qasab noqonaysa in qof kasta uu sankiisa uu xirto sababta taa loo samaynayo kuma fogaanayo amarkaasaan doonaya inaan sheego face coveringka waa wax shaqaynaya ee muhiimaduna ay tahay adigan xiranaya in candhuuftaada iyo hindasadaada iyo hergabkaaga in aad ka celisid qofka kale kula dariska ah ee ku dhow isagana sidoo kale marka labadeeniba haddii aanu kala ceshino wixii aanu isku afuufi lahayn meeshaas waa lagu badbaadayaa ilaah idinkii amarkuna taabo ka soo jeeda maxaa yeelay dad isticmaalay isteedyo isticmaalay wadamo badan oo isticmaalay way u shaqaysay transmissionkii cudurkii isu gudbayna hoos bay u dhigtay statekeena xaalkeenu wuu fiicnaa waxaanu ka fikiraynay in aanu dib magaaladeena u furanno oo hadda waxaynu maraynaa phase 2 county-geena laakiin si calaamado ka dhacayo gobolada inala deriska ama degmooyinka inala deriska ah ayaa waxay keentay in cudurkii aanu tegin oo uu joogo oo dad ay sidaan weli marka waxaa la isku qabsaday sida yaakim oo kale ka dhacaysa oo kale cudurkii hadda uu ka dilaacay si taa aysan u saameyn countiyada kale ee deriska la ah sida Ten oo kale county-ga hadda aanu degannahay King county-ga ayaa waxa amar la dul dhigay cid kasta in ay face covering ka qaadato county-geena waa maxaan ku rahaa highly recommended weeyaan oo King county-ga taasoo macnaheedu qof kasta in la inform gareeyo lagu educate gareeyo lagu encourage gareeyo lagu dhiirigeliyo in uu xirto laakiin se state-ka maanta waxa ka dhacaya berito dhaqangelaya waxay siinaysaa cid kasta county kasta meel kasta waxay siinaysaa awood oo hadday u baahdaan in ay ka soo baxsan karaan toolbox-kooda in amarkan uu meesha u yaalo oo ay dadkii sharciga dhaqangelin lahaa law enforcement-iga waa haddii ay u baahdaan in ay isticmaali karayaan ilaa iyo haddase county-geena qof kasta oo jooga
ama statekeena qof kasta oo ku noolba waxa laga codsanayaa laguna dhiirigelinayaa inuu amarkan u hoggaansamo taasoo qof kasta qasab ku ah dadka qaarkood waa loo ogol yahay markay maqaayad ku jiraan in ay face mask inta iska dhigaan cuntooda isaa ku cunaan waa markii ay space 6 feet ah oo u dhaxayso qofka kale ee maxaan ku raysnaa kursiga kala fadhiya iyo waxyaalo oo exceptional way jirtaa sidiisabana waxaaba laga cafiyey nidaamkan ama maxaa la dhihi jira orderkan amarkan ilmaha yaryarka ee 5 sano ka yar iyagu waa laga cafiyey dadka kale curyaamiinta ah ee ama xaalad caafimaad darteeda ay dhibayso ama dhibaato u geysanayso iyana waa laga cafiyey dadka dhagoolayaasha ah disable-ka iyo cid kastoo disable ah ee curyaan ah ee u isticmaala afkooda iyo maxaa la dhihi jira sankooda inay dadka kula xiriiraan iyana waa laga cafiyey marka waxa weeyaan arrintaasaa dhaqangelaysa qof kastana insha allah waxaanu ka codsanaynaa in uu sida ula socdo qofka kalena gaarsiiyo fadlan isgaarsiiya washington state baan ka hadlayaa berito oo jimco ah juun 26keeda 2020 waxa ka dhaqangelaya amar qasab ka dhigaya qof kasta inuu sanka xirto marka uu bulshada soo dhexgelayo oo face covering mandatory face covering ayaa ka dhaqangelaya gobolkeena marka uu bulshada soo dhexgelayo dukaamada markuu imaanayo marka uu basaska raacayo markuu tareenka raacayo meel kasta oo dadka soo dhexgelaysid qof kasta waxa qasab ah inuu xirto haddii dukaan aad timaado dukaamada qaarkood ama kulligoodba hadda wixii ka dambeeya waxay soo dhegsanayaan waa la isaga baahan yahay marka waa laga baahan yahay required in entry meeshan la soo galo hadday ku qoran tahay meeshu oo adigana aadan sidan waxaa dhici karaysa in gudaha lagugu qabsado ama iridkaba lagugu qabsado oo kadibna meeshaasi ay hawshaasi ay keento in booliis oo arrintaa loogu yeero dabadeedna haddii ay tahay dhacdo waxaa dhacaysa in lagu isticmaalo misdemeanor violation xadgudub in aad xadgudubtay oo ah misdemeanor fal denbiyeedkaasina wuxuu keenayaa in rikoorkaaga uu dhibaato u geysto marka sid waxaasoo dhan aysan ugu dhicin waa in loo hoggaansamaa oo amarkaa la qaataa dadkana ha la gaarsiiyo hana loo sheego dadka qaarkood waxaa dhici karaysa haddii aadan wadan oo aad bulsho meel isugu timaada aan noqotaan sida ka dhacay dukaamada Soomaalida iyo meelaha maxaan ku dadku intay isu yimaadaan bay meelaha ku sheekaystaan iyagoo dhici karaysa inaysan maxaan ku qabin dib booliiska marka wuu ku iman karayaa kadibna wuxuu ku sheegayaa inuu kula hadlo ku dhaho sanka inaad xirataan bay tahay dadka qaarkood waxaa dhici karaysa soo gaarigiisa ku jiro inuu ku yimaado ku sheego ku dhaho waxaas oo kale waa hadday dhacdo taasoo dhici karaysa markaa kadibna in dunuub kale oo faraha aad kula jirtay ama gaarigo taayirka ama gaarigo nalka ama meelo kale oo maxaan ku gawaari cilad ka lahaa in ayba ku horseedo adaa u yeertay invitation u bixiyay maadaama aad sankii iyo afkii aad soo furatay marka waxaas oo kale oo dhici kara oo ka ratibmaya dhaqangelinta barnaamijkan ayaan bulshada uga digayaa arintaasaa jirta hal la ogaado wabillahi tawfiiq markasta waxaan diyaar idin laahay ina idin wargeliyo warka inta uu cusub yahay oo aad u baahantiin in aad ku badbaadaan wixii wacyigelin ah wacdina wax sheegid ah waraysi ah oo muhiimadu ay tahay dadka yagu war kasta oo seegan inay ogaadaan wacyi kasta oo ka maqanay war iyo wacaalba wixii ka maqan bulshada inaan u sheegno si ay u noqdaan dad la socda deegaanka ay joogaan iyo aqoonta ka maqan arintaa weeyaa waxaan doonayo idinna wixii war iyo wacaal waxaydan haynba walaalayaal waad soo weydiisan kartaan xilli kasta oo u baahataan anna insha Allah waxaan diyaar idin laahay aqoontayda in aanan idinka baqin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh